nin indhool ah oo ka mid a naafada ku nool deegaanka Gudin Labe isna waxaan ahay nin hal abuur ah oo gabyaa ah qofba sidii uu yaqaano waxaan rabaa maanta inaan gabay uga turjumo dadka naafada halka daadsan dadka naafada waxay leeyihiin anuu ma lihi dadka naafadan ka turjumay ee ka yiri aadniga dhamaantiis haddaan wadar u eedayno urur noo gurmada maanaan arag abadankeeniye ummadii xil loo aamino loo idmada hawsha oo adeegideedii bulshada inankii loo dhiibo ugaas iyo garaad iyo suldaan ama amiirkooda aas-aaska xeerbeegtigoo abadkood soo joogay aabbayaasha dhaqankoo hiddaha lagu ammaaneeyey aw iyo wadaad iyo jiliyo odayo wiilkooda aqoon-yahan intii sheegatiyo kii u ololeeya hay-adaha adduunkao dhan wayna ambinayaane in yar moogi ee gebi sunbay nugu abuureene eex iyo waxay naga galeen aana godoobeede iska qaada mooye sinaan uma adeegaane arxib iyo wanaag goor horaa looga uurgo'aye adduunyadu waxay soo dirtoo ehela soo dhiibto addumiya kuwii xoog labaa qaatay agabkiiye akoon bay u tahay ganacsatada ila dhaqaaleede agoontiiyo masaakiinta baan ciduna eegayne dumarkiiyo ilmaha baahan baan inuu ka gaarayne itaalyaraha iyo nugusha waa laga eryoodaye hadday noo adeegaan sidaa waxuma eegneene ablikay waxay nugu marsheen meel adayg badane asxaanlaawayaashii xaquuq oofi mahayaane erga naafo anigay markaan ii ekoon tahaye allow uunka garansiii xaqii laga awaaraye gabagaas oo leeraa erga naafo intaa ka dheer oo wakhtiga ugu cariiriya aan raba in hadda intaas ku soo gaabiyo yartaa waxaan u sheegayaa caalamka waxaan u sheegayaa oo dowladaha u sheegayaa oo muslimiinta u sheegayaa dadkaa meesha ka muuqda naafo dad dayacan weeye caafimaad ma haystaan quutul duruuri ma heli karaan dhan walba waa u dayacan yihiin waxaan ku baaqaynaa qofkii muslina ama bidinaada danqanaya oo wax tari karaa dadka masaakiinta in wax la taro wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu